wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Durraan Axmed Faarax ayaa si rasmi ah hore uga dhagax dhigay degmada Galdogob garoon diyuuradeed kaas oo haatan shaqadiisu si rasmi ah u socoto. Garoonkan diyuuradaha oo lagu dhisayo hab isku tashiya iyadoona kaalinta ugu weyn ay qaadanayso wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiir Durraan Axmed Faarax oo arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in garoonkan dhismihiisa ay dhinacooda diyaar u yihiin isagoona bulshada deegaanka ugu baaqay in kaalin lixaad leh ay ka qaataan sidii dhismaha garoonka loo laakiin waxa laga rabaa anaga kaliya waxa ma qaban karnaa haddii uusan deegaanku si sax ah uusan uga shaqayn uusan asagoo qaybtiisa uusan ka qaadan marka waxa laga rabaa in la yiraahdo barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen anaga waxaan nala ka rabaa ka soo baxayna laakiinse deegaankan waxa laga rabay inay ka soo baxaan oo hawshooda ka adkaadaan. dacda kale howlwadeenka gacanta ku haya mashruuca garoonka dhismihiisa Cabdinuur Sicdeere ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee garoonka diyuuradaha Galdogob soo maray kaas oo haatan dhismihiisu si rasmi ah u soconayo. soo laabashadiisu meel fiican bay maraysaa, meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa. dhul ilaa 1 kiiloomitir oo runwaygi waa la xaaqay, shaqadii hadda si habsami leh u socotaa. in airport la dhisaahay wax sahlan maaha, waa shaqooyinkii dawladuhu qaban jireen, laakiin si khaas ah intii waddanku burburay dadku qolo walba isku tashi bay sameynaysaa. waa uga mahad celinaynaa in isku tashi ah wax loo wado. dhismaha airportka Galdogob ayaa la doonayaa in si dhaqso loo soo gabagabeeyo iyadoona mashruucan uu wax badan ka bedeli doono deegaanka. Cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ku dhaqan degmada Galdogob ayaa iyagu dhankooda waxay baaq u direen qurbo joogta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona ugu baaqay in kaalin lixaad leh ka geystaan sidii loo dhammaystiri lahaa mashruuca dhismaha garoonka diyuuradaha ee Galdogob kaas oo muddo dheer lagu taamayay in laga hirgeliyo degmada Galdogob. waxaan leeyahay dadweynaha dhageysanaya oo reer Galdogob oo haatan maanta meesha jooga iyo inta dibadda jirta oo ehelkaaba waxaan leeyahay laga qayb qaato. airportku waa isku tashi, dawladdu kuma baaqin, laakiin annaga waxaan leenahay dawladaha sidii gudoomiyaha ku-xigeenka hortii uga hadlay dawladaha ama Puntland ha ahaato ama federaalka ha ahaato mar hadday tahay arrin isku tashi ah oo airport ay tahay oo hadda maanta haddii uu dhismo dawladdu ay u imaan doonto in cashuurteeda ka qaadato qaybteeda ka qaadato waxaan leenahay maanta hallan ku taageero boorkaas waxa laga qabto la soo dhaweeyo. Soomaali baa iskale, Puntland baa iskale, mudug baa iskale, degmadan wax tarahaya cadaan iyo madow cid kastaba inuu anfaco sida raggii hore u sheegay sidaasaan rajaynaynaa. airport waxa weeye cadaan iyo madow ay ku nacfii doonaan. airport waxa weeye 5 qaaradood oo adduunka la isaga gooshi doono laguna nacfii doono cid kasta u baahata haddii Ilaahay qadaro. waxaan leenahay airport noocaasa cid walba oo u quseeyo si firfircoon ha uga qayb qaadato hana u diyaar garowdo. waxaa la yiraahdaa man jadda wajada waman sarca xasada. dadku marka ugu horeysa waxaa la rabaa in meel cilaa inta wax laga bilaabo juhdi iyo maskax iyo maalba in la geliyo oo aad iyo aad loogu dadaalo dabadeed meeshaas waxaa laga helaa nacfi. airportka waxaa la gelinayaa insha Allah juhdi wuxuu u baahan yahay adkaysin iyo sabir iyo maal iyo wadajir buu u baahan yahay. qofka walaalkiisa inuu wax ku tari kara awooda ha anfaco oo ha sameeyo. qofku kii talahayo inuu talada keeno, kii dhaqaalahayo inuu dhaqaalaha keeno, kii fikirhayo inuu fikirka keeno. taasaa wax lagu qaban karaa. qofkii dabcan ay si kale wax ula muuqdaanna waxaan ka codsanaynaa inuu dulqaad iyo talo wadaag sameeyo. wixii ama uu tabanayo, wixii uu si kale u arko inuu odayaasha iyo dadka hawsha mas'uuliyadda ka hayo uu ku simo oo soo gudbiyo. haddii sidaas wax la isula turxaan bixiyo oo loo wada shaqeeyo oo la isu dulqaato waxaan aaminsanahay waynu ku guuleysanaynaa biidnillaahi tacaala hawshaan aan gacanta ku hayno iyo kuwa kalaba.